يا ود ما سنتي اوكي waxaanu nidhi researchku wuxuu ku bilaabmayaa qof a person ayaa dhacdo ayuu arkayaa ama meel buu ka soo akhriyaya tusaale ahaan intaanad bilaabin title-kaaga waxa laga yaabaa inaad soo eegto literature-ka oo tiraahdo maxaan wax ka qoraa maxaa gaaboo jira halkeen wax ka arkaa waa kow waa labo supervisor baa ku yidhi area-da wax ka qor waa saddex waxa laga yaabaa problem aad arkayso adigu ku nooshahay in ma garanaysaa ayay allahu mustacaan aad rabto inaad wax ka qorto kabacdina taasaan xog ka soo ururinaynaa conclusion ka samaynaynaa marka hanaanka loo aanu ku ogaanayno marka phenomenahan dhacdadani marka aanu rabno in aanu maaragtay aanu observe garayno ama aanu eegno waxaa la yidhaha scientific thinking waxa weeyaan inaanan u fikirin sidii qofka aanan waxba baran maadaama aad wax baratay waa inaad reasoning samaysaa maanta waxaanu ka hadalnay qaybtan intii hore waxaanu ka hadalnay rationalism ayaanu ka hadalnay scientific thinking waxa weeyaan tusaalehaan sixir barar baa dhacay oo raashinkii baa qaali noqday qofkii miyiga joogay aan waxba baran haddii raashinkaasi la yidhaahdo maciishadii baa qaali noqotay waxa koobaad ee maskaxdiisa kusoo dhacaya waxa weeyaan abaaraa dhacay laakiin dee adduunyadoo dhan abaara kama dhicina scientific thinking waxa weeyaan in anagu sababayno nidhaahno kow sarifkii baa isbedelay labo dagaalkii Ukraine baa qamadigi iyo raashinkii adduunyada soo degay saameeyay COVID-19 baa dhacay waxyaabahaasi waa inaan markaa sida aanu u sababayno marka that scientific thinking weeyaan marka hadduu computerkan imika iga xumaado marka hore waxaan odhanayaa horta charger ma leeyahay baalkimida dabma ku jira markaaba waa inaan sidaa u sababayaa marka anigoo isticmaalaya scientific thinking ayaan waxaanu samaynaynaa haddaba variableskeennanu dhisayno waxaa laga yaabaa markaa inaad soo akhrido literature ood istiraado ama markaanu observation samaynay phenomena ama dhacdo meel jirtay ayaanu la deris noqonay halkan baan ka bilaabaya markaa phenomenihii aanu markaan imika tusaale ahaan soo baadhay wuxuu noqday qaad consumption among youth dhalinyarta qaadka cunta oo soo badanaysa that scientific thinking markaas waxa weeyaan phenomena ama dhacdo aan anigu la noolahay oon arkayo bulshadeedii wax ka dhex dhacaya markaa therefore scientific thinking maan samaynaya waxaan odhanayaa qaad consumption among youth-kan maxaa keenaya variables kulli factors baa keenaya waa kuwan oo waxaan idhi waxaa keenaya tusaale ahaan cost of qiimaha qaadkiyo ama jaban ama maaragtay lacag yar lagu helayo camal la'aantii ayaa keenaysa inuu dhalinyartii qaysho waxaa keenaya waxa la yidhaahdo peer pressure oo saaxiibkii baa ka odhanaya niyo maanta waa ciida aan isku eegno ama perceived benefit oo qofku wuxuu aaminsan yahay ilaa mirqaamo maaha inuuna waxba qaban karinba markaa kuwan markaa waxaa la yidhahdaa independent variable waxa weeyaan kan dependent variable-ka waxa saameynaya in dhalinyartu qaadka cunto waxa keenaya qiimaha qaadka camal la'aantu waxay keenaysaa this causal relationship-kii aanu ka hadlaynay imika markaanu lahayn epistemology aanu baadhaynay waa kuwan conceptual framework waxa rule independent variables-ka inay bidix maraan dependent variable-kana midig buu maraya markaa dependent-kani wuxuu ku tiirsan yahay kuwan mar walba tusaale ahaan camal la'aantu badato qaad consumption-ka xidhiidh baa kala dhaxaynaya mar walba peer pressure-ku bato qaad consumption-ka xidhiidh baa kala dhaxaynaya mar walba perceived benefit-ku bato qofku aaminsan yahay inuu markuu qaylo inuu wax qaban karo xidhiidh baa kala dhaxaynaya kuwan baa markaa sidaas imika idinka good news waxa weeyaan stage-kan waad soo dhaafteenba laakiin markii hore aan soo dhisayni sidan baa loo soo dhisaya haddaba halkaa markaan marayo maxaan u baahana topic waxa weeyaan areadan aan ka hadlayo weeyaane maaragtay qaad consumption-ka okay waxaan u baahanahay markaa title-ku wuxuu ka imanayaa dependent variable-kan iyo independent variable-ka oo la isku geeyey baan waxaan u sii geynaynaa target population iyo study area halkii cilmi baarista lagu samaynaya this is the title markaa factors markaan leenahay waa kuwan waa independent variable-ka waa kow waa labo waa saddex waa afar factors waa kuwa waa factors influencing waxay saameynayaan oo waa kan xidhiidh halkan sawirkan xidhiidh buu muujinayaa qaad consumption among youth in Garowe marka halkan waa maxay independent variables-ka waa kuwan dependent variable-ki waa kan target population-ki waa dhalinyarta study area-hina waa magaalada Garowe title-ka haddaba markaan haysto wuxuu iiga yimid conceptual framework-gayga markaa
baan waxaan u imanayaa haddaba title-kan maan sarrifayaa title-kani goolkayga cilmi baarista imika halkan baan ka arkaa anigu goolkaygu kan buu ka imanayaa title-ka specific objective 1 kan buu ka imanayaa specific objective 2 kan buu ka imanayaa specific objective 3 iyo 4 inta conceptual framework ay ugu sawiran unba objective is noqonaya wax kale oo dheeriya ima soo galayaan haddii hypothesis hadhow ka dhigayana objective kaasan si sarrifaya marka title-kan oo aan ka dhigay ficil aan ka yar horreysiyay waa kan imika title-ki waa inta waa factors influence heart conception when you think about to investigate na title-ki baan waxaan ka dhigayaa wax ficil baan gelinaya wax la gaarayo yool baan ka dhiganaya si aan uga dhigto feebkaas uma soo geliyay bas waa to investigate factors influence heart conception when you halkaasi waxa ka cad marka goolkeygii specific objectives waxaan nidhi eeg conceptual framework markaan sidaa u arko waxa la garanayaa the whole book ama cilmi baaristaada oo dhan sawirkaas ku salaysan tahay haddii noqoto chaptersku sida u kala horeynayaan literature review sida u kala horeysiinayso ilaa conclusion-ka u dambeeya sawirkaas ku jira marka waayahay specific objective 1 wuxuu ka imanayaa baan nidhi independent variable-ka koowaad oo waa kan to investigate the extent to which cause influences heart consumption among youth. Key labaad waxa weeyaan to identify the extent to which unemployment influence heart consumption among youth. Okay. Ka saddexaad waxa weeyaan assess the extent to which peer pressure influence heart consumption among youth. Key afraadna waa perceived benefit. Wax dheeriya iguma jiraan. Haddaan saddex variable haysto saddex objective aad haysataa. haddaad laba variable haysato oo ay independent variable laba objective aad haysataa sida ay u kala horeeyaanna waa inay buuggaaga ugu kala horeeyaan numerically number ahaan markaa okay specific objectives kan si haddaba aan u gaadho maxaan u baahanahay waa inaan su'aal ka dhigaa markaa su'aashaana hadhow toole waxaan kasii diyaarin doonaa questionnaire-kayga markaa qayb ka mid ah therefore su'aashan koowaad si aan objective-ka u gaadho specific objective 1 waa inaan su'aal ka dhigaa to what extent does cause of heart influence on heart consumption among youth kii labaadna waa kan unemployment kii saddexaadna waa kan kii afraadna waa kan kuwan markaa specific objectives-ka waa inaan sarrifaa oon su'aalo u bedelaa su'aalahana hadhow toole waxaan ka diyaarin doonaa research questions ayaan ka diyaarin doonaa oo maaragtay questionnaire kuwan baan ka diyaarin doonaa kuwan haddaan ka jawaabana tusaale ahaan objective-ka koowaad haddaan ka jawaabo intaan su'aalo u soo ururiyo waxaan ka jawaabay research question-ka koowaad haddaan ka jawaabo specific objective-ka koowaad baan ka jawaabay haddii marka afarta baan ka jawaabo goolkan cilmi baaristaan gaadhay oo waxaan xog ka keenayaa sida factorieskani ay u saameeyaan in dhalinyartu qaadka cunto marka halkan kani waa factors the role qofkii qaadanayo tusaale ahaan the role of employee motivation variables bay leeyihiin motivation-ka waxaa ka mid ah tusaale ahaan promotion acknowledgement bonuses in dadka la siiyo marka mid walba wax walba variableska la xidhiidha ayaad halkaas soo gashanaysaa marka halkani waa factors qofku the role buu qaadan karaa influence of u qaadan karaa impact of employee motivation laakiin variableska saasaa loo dhisayaa marka intaa haddaba markaan dhiso ayaan waxaan u iman doonaa marka inaan qoro haddaba background-kii cilmi baaristayda markaa intan haddaba maxay iga saacidaysaa aniga waxay iga saacidaysaa background-ka intaanan ku degdeginaynan qorin in aan wixii aan baari lahaa in literature-ka ka akhrin lahaa maxaan baarayaa markaa waxaan baari doonaa cost iyo heart consumption xiriirka ka dhexeeya unemployment iyo heart consumption peer pressure iyo heart consumption intaa markaan baaro een akhriyo ayaan background-kayga qori doonaa background-ka markaa laba option maan haystaa inaan u qoro option-ka koowaad waxa weeyaan global perspective inaad ka eegto heart consumption ama drug addiction guud ahaanba inaad global perspective ka eegto adduunka siduuga jira inaad ka eegto regional perspective oo ah East Africa ama Horn of Africa siduuga jira iyo local scenario oo Somaliland siduuga jira dad badan baa waxay odhan doonaan Somaliland weli topican waxba lagama qorin iyo maaragtay literature ma hayno iyo no sidaad u baaraysaa ayay wax ka dhiman yihiin waan isla arki doonaa marka target population ayaan gelinaynaa marka oo problemkan iyuu saameynaya sidoo kalena research gap oo ah cilmi baaristani halkaas wax ka qaban doontaa option-ka labaad waxa weeyaan
inaan historical background aan ka eego barigraafka koowaad weeyaan waxan waa barigraafsan ka hadlayno waa barigraafiskii backgroundkeena weeyaan marka historical background inaan ka eego ko labo conceptual background inaan eego oo cost of hard consumption ama muxuu yahay concept ahaan theoretical background theories la xiriira tusaale ahaan drug addiction ka iyo contextual Somaliland sidoo uga jira saddexdaasi baan eegayaa marka labada option man haysta background-ka inaan u qoro marka statement of problem ko imo isagana laba option man u haysanaa option ka koobaad waxa weeyaan who inaad dadka u sheegto why it's a problem waxaad ka hadlayso maxay problem u tahay sidoo kale inaad nagu qanciso how it's a problem kuma problem dalka haysta sidaas oo haysta statistics adoo adeegsanaya marka target population ka ay saameeynayso waa inaad noo sheegtaa sida daraadeed background-kaagi maadaama uu dhisnaa markii hore oo xog adag ku dhisnaa waa inaad sida information background-kaad ka soo qaadataa waa option-kaas option-ka labaad ee statement of problem loo qorayo waxa weeyaan inaan marka hore context-kaad ka hadasho Somaliland tusaale ahaan background-ka magaalada Hargeysa ama Somaliland maxaa hadda la og yahay problem-ka research-kaagan la xiriira sidoo kale the issue-gu waa maxay problem-ku waa maxay aad ka hadlayso problem-ka maxaan u baahanay inaan ka ogaano tusaale ahaan background waxa weeyaan Somaliland waxa weeyaan ilaa waqti badan bay dadku ay qaadka isticmaalayeen therefore marba marka dambe uu sii kordhay the problem waxa weeyaan dhalinyar badan qaadka ay cunayso what we need about waxa weeyaan waxaan rabnaa inaan ogaano waxa weeyaan factors-ka keenana dhalinyaradu qaadka cunto relevancy-guna waxa weeyaan maxay cilmi baaristan muhiim u tahay justification waxa weeyaan cilmi baaristan ka horeysa lama sameyn why it's important ina waxa weeyaan waxay important u tahay new insights bay ka eegi doontaa dhalinyarada iyo qaad consumption-ka value-guna waa waxay soo kordhin doonta objective maxaad rabtaa hadaba inaad ogaato title-kayga halkan ka soo noqon doono marka although some studies have been conducted about hard consumption there is no specific study ka hadlaysa factors influencing hard consumption among youth oo big maaragtay statement of problem ka la yiraahdo halkaas uu soo galaya marka isagu okay hadaba intaanan gelin waxaan eegayaa information ka background-kan ku qoray statement of problem ka halkeen ka keenaya I need to marka literature inaan marka soo akhriyo marka one more time waxaan tagayaa browser-kan ku noqonayaa yes halkan marka waxa ugu weyn maaragtay laga helo literature-ka meesha ugu weyn laga helo waxa weeyaan Google Scholar baan marka aan tagaya Google Scholar kan tagaya waayahay Google Scholar-ka markaad joogto marka qofkii tusaale ahaan account ku leh wuu arki doonaa oo waxa uu soo bixi doonaa page-kiisa qofkii account ku leh Google Classroom-ka this is my account inuu baarisaayigi kuwayga waa kuwa ku jira marka qofkii account kale halkaas uu joogaa qofkii kale halkan buu joogaa therefore sideen hadaba u baaraya Google language buu leeyahay la isticmaalayo markaan rabo inaan wax ka ogaado cost iyo hard consumption halkan baan ku qori doonaa marka waxaan eegayaa tusaale ahaan waxaan oranayaa cost and hard consumption okay waxa ii soo baxay halkaas 8700 9870 cilmi baari waraaqood macnaheedu waxa weeyaan macnaheedu qof walba wax walba oo maaragtay cost iyo hard consumption la xiriiro la qoray Google-ku iska soo qabanaya I don't need that anu waxaan rabaa xiriir cilmi baariseed ama variable-iska wax xiriir ka dhaxaysiinaya marka therefore inta note ku qorta qaata hadaba halka waxaan oranayaa
quotation maan furayaa waxaan gelinayaa cos oo variable-kii koowaada waan xidhay plus baan gelinayaa halkaa quotation kan furayaa wixii labaadeen baadhay ayaan halkan ka eegayaa markaa oo dependent variable-kii markaa waxa weeyaan quotation plus cos plus khaad consumption search baan odhanayaa 9,000 ee meesha ka soo baxay way iga hadheen waxa iga soo baxay 342 beebar kaliya oo kaliya iga soo baxay oo waliba u habaysan relevancy-ga eeg halka therefore cilmi baaristan koobaad ee halkan ka soo baxday waa taydii tan imikaanu tusaalaha ku qaadanayno maadaama uu xidhiidh toos uga dhaxeeyay tii bay soo qaadaysaa markaa eeg cilmi baaristii koobaad markaa waa kan cilmi baaristii koobaad waa kan factors influencing khaad consumption among youth oo maxaan ku baarnay keywordskii bay halkan ku jirtaa cost of khaad iyo khaad consumption sidaa daraaddeed cilmi baaristii relevant-kii buu soo qabtay waa tan tusaalaha innagu aan ku qaadanayno oo 17-kii la daabacay markaa okay halkan maan haddaba anytime sort baan odhanayaa tusaale ahaan waqtiyada eeg halkaa recent literature iyo contemporary literature iyo waxyaabaha haddaanu maqallo halkan maan ka soorti garaynaynaa since 2023 maxaa la qoray 5 cilmi baaris baa la qoray 5taa cilmi baaris oo khaad consumption iyo waxaa la xidhiidha iyo waxaas ay ku jiraan iyo cos baan priority ka dhiganayaan akhrisanaya since 2022 na maxaa la qoray waxaa la qoray 24 cilmi baarisood since 2019 na waxaa la qoray 102 haddii halkan aan geliyo since 2015 na taydii baa ugu soo horeynaysa maadaama more relevant ay tahay markaa halkan maan haddaba markaa sii raacinayaa Somaliland ama wax Soomaali la xidhiidha maxaa la qoray waa kaas waa 4 beebar eeg waa 4 natiijo halkaa baan markaa ka akhriyaya markaa therefore kan bal tusaale aan soo qaadano kan koobaad variable-kaygii koobaad baan arkay helay ama tusaale kale oo qaad consumption kan ma dhinac kale bal ka balaadhanaan eego waxaan ka hadlayaa tusaale ahaan employee motivation and job satisfaction employee motivation and performance ama organizational performance baa waxa laga yaabaa mid idinka mid inuu title-kiisa yahay 35,000 oo eray baa kan soo qabtay waa since 2015 laakiin ka saar bal waqtiga anytime there beberkaasu kaa soo qabtay employee motivation and productivity balda halkan ama performance wuxuu soo qabtay 2,700,000 oo kun oo maaragtay natiijo therefore haddaan sidaydii u baadho quotation employee motivation plus productivity صدق اللي إحنا نكون بكسو عليه ماشي since 2023 سنة كان محل قرى كون يشان بقول بالله قرى والواح لا حريرة أفريقيا ميجران مركانو لنا هاي regional perspective yes لا بقوليو ما ركتي يعني لا بقوليو يو انت حسيبها سنة كان لقرى أوكي anytime ده واح سومالي لا حريرة بل سومالي لان لا حريرة ميجران والله طابعي وكا بقول يلا علم باريسود ويان أو واحد صومالي يكون شرط لا طابع تصالان assessment of financial motivation on employee productivity Ministry of Finance وهرجيسة 15 بلا طابعي employee motivational nature and its influence on performance وبرع كاسنا واقع سنة 2023 سنة كان محل قري وحبا 22 طبعا بلا قري طبعا كاسنا أخرية يا مركال أوكي هذا وسي أنا أخريه وحنو باهناهي تكنيك وإننا وقت ما هيو waxa laga yaabaa beebar walba inaan 15 minutes kaga dhex baxaan u baahanahay oo wixii xure meesha ku jirana aan ka qaato ayaan u baahanahay marka maxaan samaynayaa tusaale ahaan this is my beaver
waa kan 5 meelood man ka eegi doonaa bahalka dhan warqada 22 page 15 quick ayaan eegi doonaa marka meelahan ka akhriyo marka waa kuwan meelahan ka akhriyo waa kuwan meelahan ka akhriyo waa kuwan waxaan eegi doonaa yes reading an academic paper waxaan eegi doonaa title-ka waa ka marka hore baan ku baarayaba title-kan eegi doonaa title-ku wax relevant la ah oo cilmi baaristaada la xidhiidha miyaad haysataa yes ka bacdina waxaan eegi doonaa keywords-ka oo meesha imika khad consumption aan ku baariyay Google-ka weeyaan ama employee motivation iyo job satisfaction aan lahaa promotion iyo job satisfaction reward iyo job satisfaction acknowledgement iyo job satisfaction waxyaabahaas aad eegaysaa abstract-gana waad akhrin doontaa abstract-ga 4 shay oo muhiim ah ku jira waxa ku jira goolkii cilmi baarista 1 methodology la isticmaalay key findings maxaa la helay conclusion maxaa la soo helay oo maaragtay lagu soo sheegaya marka sidoo kale waxaan eegi doonaa conclusion-ka warqada waxa ku jira thesis restatement wax la yiraahdo marka hore wuxuu yiri tusaalahan objective-kaygu waxa weyn inaan goolkaygu inaan baaro factors-ka keenay dhalinyaradu qaadka cunto anigoo xoog saaraya cost-ka iyo peer pressure iyo waxyaabahaas conclusion-ka maxaad soo heshaa ku jira therefore paper-ka intiisa gudaha waxa soo dhan waxba kaama gelin oo maaragtay waqti badan kuma luminaysa halka maana daba eegaynaa waa tan this is the real paper waa kan waayahay waxaanu niri kow waxaad eegaysaa title-kii waa kan title waa factors influencing heart consumption yes heart consumption baa la xidhiidha iyo factors waa ku jira keywords-kanaan eegaya haddaba waa kuwan keywords waxay warqadan dhan maxay ka hadlaysaa waxay ka hadlaysaa heart consumption cost of heart unemployment peer pressure iyo perceived benefit bay ka hadlaysaa abstract-gii waa kan 4 shay 5 shay sheega 3 kamid halkan bay ku jiraan hal page bay ku jiraan waxaan nidhi waa kanoo ujeedada cilmi baaristo abstract-gii ku jirtaa waa tan the purpose of this study waxa weeyaan in la examine gareeyo factors influencing heart consumption methodology-ga la isticmaalayna waa kan oo descriptive waxa la isticmaalay descriptive research design ayaa la isticmaalay key findings-kiina waa kuwa conclusion-kiina waa intan weeyaan oo xaggaas sare tusaale ahaan wuxuu ballan qaaday inuu factors-ka baari doono conclusion-na muxuu soo helay kuwan buu soo helay therefore adigu markaad background-kaaga qorayso ama literature-kaaga qorayso statistics-kaas iyo waxaas oo dhan uma baahnid waxaad u baahan tahayba study-gii waxay heshay in cost of heart peer pressure iyo perceived benefit ay significantly influence and trigger suit consume heart si haddaba faahfaahin badan aan u soo helno conclusion-kan tegaya waxa statistics oo dhan ka guuraya waxaan tegaya conclusion waa kan conclusion-ku waxa weeyaan ma niri thesis restatement 4 objective laha 4 objective summary-googu iyo halkan ku jira oo tusaale ahaan wixii cost of heart la xidhiidho dhan qofka iga dambeeya citation u baahan inta yar uu akhriyaya chapter 4 kii dhanaayo wixii waxba kama gelin wuxuu akhriyay the study found out that cost of heart triggers consumption of heart among youth in Garowe sidoo kale most of the youth finds a bundle of heart to be cheap while drugs such as marijuana cocaine and alcohol and heroin are illegal in Somalia heart is free to chew and it's the most accessible drug in the Somali market okay inta buu qaadan doonaa kii unemployment-ka baaraya aniga iga dambeeyana intan buu qaadan doonaa kii baaraya peer pressure-na intan buu eegan doonaa marka inta haddaba markaan soo akhriyo waxaan u baahanahay my own notes inaan anigu qaato marka oo aan note anigu aan leeyahay qaato si aan background-kaygii iyo waxyaabahaygii aan ugu saleeyo marka maxaan samaynayaa waa kan citation session-ka habeen dambaan isagoo faahfaahsan aan dhigan doonaa halkan laakiin citation-kii baa ku jira cilmi baaristan citation-keygii waa kan halkan maan site odhanaya kabacdina ABA style haddaan rabo ABA style baan qaadanaya markaa waxaan samaynayaa markaa waxaan la tegayaa page cusub page-ka cusub markaa annotated bibliography ayaa la yidhaha waa intan weeyaan this is annotated bibliography annotated bibliography waxa weeyaan wixii cilmi baarista aan ka fahmay ayaan may an weerisan ku qoraya si aan plagiarism hadhow uga badbaado markaa
marka maadaama cilmi baaristan imika anigu aan hore u sameeyey let's assume inaan anigu soo akhriyey ama adigoo kaloo akhriyey ayaan metelayaa marka waxaan odhanayaa marka bede studied factors influencing carb consumption among youth in Garowe. واكن wuxuu yiri wuxuu darsay factorska keenan dhalinyarada qaadka cunto wuxuuna xoog saaray cost of qaad unemployment peer pressure and perceived benefit marka using descriptive research markaan bible-kii akhriyey factor cost-kii iyo qaad consumption-kii akhriyey this is the summary and fahmay markaan shantii qaybood warqadda ka akhriyey title-kii keywords-kii abstract-kii conclusion-kii waxaan fahmay ninkani wuxuu baadhayey factorska keenan dhalinyaradu qaadka cunto wuxuu isticmaalay descriptive design maxaa halkan aan ugu soo darsanayaa hadhow tolo waxaad ka ogaan kartaa adiga laftaada cilmi baadhistaada methodology-ga ugu fiican ee la isticmaali karo marka study found out waxay heshay that cost of qaad one of the main triggers way of qaad consumption among youth maadaama dhalinyaradu ay u aragto in qaadku available and affordable yahay in the market marka haddii aan sii wadayo marka waxaan odhanayaa additionally other factors that contribute waa kuwa faariga weliskii kale intan haddaba markaan diyaarsado dee background-kaygii haddaba marka qof background aad qoraysa haddaba notice-kii halkan aad dhigatay ayaan ku qoraynaa marka qofka aniga iga dambeeya tusaale ahaan baadhaya effect of cost-ka qaad consumption wuxuu saameyntu ku leeyahay waa kan dee wuxuu isticmaali doonaa evidence-gan oo cilmi baadhistan kale ay soo heshay marka muxuu samaynayaa marka halkan markuu joogo isagu background-kiisa qorayo ee uu soo qoro tusaale ahaan global perspective oo drug addiction-ka oo regional perspective local scenario halkaas Somaliland oo kale let's assume marka inuu qofkani garowo kale ka qorayo halkan buu paragraph-ka marka qoraya marka paragraph kasta oo academic paragraph markaad qorayso saddex shay waa inuu ka koobnaado notice-kiina kulli waad qaadanaysaan academic paragraph waa inuu saddex shay ka koobnaadaa kow claim ama topic sentence labo evidence oo citation aad ku keenayso iyo saddexo analysis wixii dee waa inaan falanqaynaa marka okay
علمي بارستان ninka sameeyay inuu isaga citation dib dambayso looga qaadan doono war uma hayo therefore waa inaan shaad baahideenna inaga leeg aanu maaragtay aanu u gelino markaa tusaale ahaan 5 minutes bay noo hadhay 1 minute baan inta ku dhamayn doonaa intaa kalena wixii kale taliyo tusaalaan kala qaadayna habeen dhammaan waqti fiican qaadan doonaa marka claimku tusaale ahaan waa maxay intan baan hadda sii haystaa background baan inaan qoro rabaa oo la xiriira cost iyo khaad consumption la xiriira maaragtay waxaan odhanayaa halkan baan gelinayaa cost remains crucial dhalinyarta Soomaalida ah qiimaha qaadku waxa weeyaan waxyaabaha ugu badan ee keenay in dhalinyartu qaadku cunto haddaanan markaa cilmi baadhisan aan jeebka ku haysanona hadda koor soo akhrin intan ma idhaahdeen de this is the claim markaan anu intan sheego caddayn baa layga rabaa de markaa tan baan de markaa soo qaadanaya oo waa kan ninkan muxuu soo helay way waa kan oo mar hore intan soo helay ayaa meel iigu jiray waa kan waan soo qaaday copy and paste baan isticmaalay citation waan gelinayaa markaa ama halkan ma waxaan odhanayaa bede halka de study aan idhi bede oo 2017kii qabtay waa kan intan buu helay and this is the citation symbol waa kaas iminka maxaan qoray waxaan qoray claimkii waa kan oo aniga intan iskale intana waa evidence-gaan ku cadeynayay in cost-ku yahay waxyaabaha qaadka keena halkeen ka keenay background-kan soo akhriyay analysis baan raacinaya analysis-ki waxa weeyaan markaa inaan falanqeeyo markaa daas halkan waa inaan kan falanqeeyo markaa waxaan soo helay waa inaan falanqeeyo markaa oo waxaan idin qaad waa available daas the availability of qaad baan odhanayaa the availability and affordability of hard is a real problem that needs our attention. maxaan falanqeeyay markaa waxaan keenay evidence baan waxaan keenay claim evidence baan halkan ku qoray kanna waxa weeyaan waxa la yiraahdo analysis-ki markaa this is marka academic paragraph siduu u dhisan yahay qaybahaas waa inaan laga helaa marka background-kayga markaan dhisayo markaa waa inaan marka hore aan intanan akhristay aan meel ku sii haysto markaa wixii literature review iyo wixii kale habeen dambe ayaan maaragtay aan si fiican u eegi doonaa marka habeen dambe waxaan eegi doonaa literature review waxa kaloo eegi doonaa citations and referencing waa more technical kaasina citation and references si aanu samayno waxaad u baahan tihiin inaad software-kaas aad ku soo dejisataan kombiyuutaradiina Mendeley waqti badan iyo ayuu inii save gareyn doonaa sidoo kalena error badan ayuu meesha ka saari doonaa oo citationska waxyaabaha la xiriira isaga markaa Google gareeya just Google it maaragtay waxaad heli doontaa markaa buug yar oo 16 page oo isaga from scratch ilaa meesha ugu sarreysa aad gaarsiin doonto markaa 1 minute baa inoo hadhay marka idinkaan idinku soo dhaweynaya wixii tala iyo wixii aad ku soo kordhinaysaan iyo documentskan sidaan idinla wadaagi lahaa kan inaan idin soo diro weeyaan haddii kale ardaydan supervisor ka ahay baa groupkayga ku jira kuwaasaan soo diri doonaa iyo idinla wadaagaya marka haye soo dhawaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.